waxaa ka mid a waxyaabaha dadka toobad iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada bay yidhahdaan. kelinimadu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan, labaduna waa shaydaanmo, saddexduna waa safar baa la yidhi. yacni shaydaanku intaad keli tahay waa kugu lamaanyihi, aad buu kuula joogaa. waxaa la mid ah inta aad firaaqo iska tahay qofka mu'minkii inaanu firaaqo noqon baa fiican. cibaado ku mashquul, waxbarasho ku mashquul, xoogsi ku mashquul, wakhtigaaga isticmaal. waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato. laakiin dhallinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato TV-ga daawato waad wereeraysaa. sidaa ogeed culammadu waxay dhahdeen waxyaabaha qofka macsidana ka durkiya toobaddana u dhoweeya waxaa ka mid a albucdu can almuhiiraat, waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko.